Kulankan oo uu gudoomiyey taliyaha guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka, Gaashaanle Dhexe Nuur Maxamed Gaabow Nuur Farey waxaa qayb ka ahaa taliya ururada 14aad, 66aad iyo 83aad ee guutada Oktoobar, saraakiisha amniga deegaanka Janaale iyo maamulkooda. Waxaa looga hadlay xoojinta amniga deegaanka iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda gobolkeedu dhacay ee Shabaab oo guutada 14 Oktoobar ee ka wado deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada Janaale. Gudoomiyaha Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur Cadaala ayaa ugu horeyn kulanka ka hadlay. Dadka ku sheekeynaya waxay ku dhahayaan markii hore markii imaanayseen waxa u maleynayeen ciidankii hore camal u maleynayeen, laakiin ciidan dadka la dhaqmaayo, gabdha ka guursanayo, xiradooda joogo, shaqada dawladda dhinaca ka hayo, dadka aad ugu faraxsan yihiin. Ciidamada Oktoobar runtii kunii ku jiro madcalina tali Nuur adigana sida aad Janaale aad focus ku saaraysid inay naqato ciidanka iyo maamulka iyo is dhaxgalaan aad ugu faraxsanahay. runtii maamulka Janaale waxay saaxiib dhow leeyihiin saraakiisha ciidamada Oktoobar. waxaan u maleynayaa markii aad meelaha kala tagtid inaad macnaha helaynin saan macnaha maamulkii aad xisaabtamaynin, hadda waxaad haystaa maamul aad la xisaabtami karto, aad macnaha la shaqeyn karto oo shaqo wanaagaaga iyo saraakiishaada si dhow oo la shaqeynaya haysataa. runtii waxaan ku balan qaadinaa inta saraakiisha ciidamada Oktoobar ay joogaan inaan si dhow la shaqeynayno, aan dawladnimada kala shaqeynayno. wax walba oo Oktoobar ay u baahan tahay saraakiisheeda u baahan inaan u sameyn doono insha Allah. Gaashaanle Dhexe Nuur Maxamed Gaabow Nuur Farey, taliyaha guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka, ayaa bogaadiyey sida shacabka deegaanka Janaale iyo maamulkooda ay ula shaqeeyaan ciidanka xoogga, gaar ahaan guutada Oktoobar ee ku sugan Janaale. Inaan isku imaano anagoo ka kooban hay'adaha amniga, haday maamul yihiin iyo haday ciidan yihiin ba anagoo ka kooban inaan isku imaano halkan oo Ilaahayna makaniyay. aadan ugu faraxsanahay maamulka degmada oo gudoomiyaha horeena ugu mahadcelinaynaa wada shaqeynta wacan ay la shaqeeyaan ciidamada. sababtoo ah ogtiin hadii aan la wada shaqeynin oo ciidanka iyo maamulka aysan gacmaha isqabsanin ay kala shaqeeyaan, aduguna naga faa'iideysanaa bulshada aan mas'uulka ka nahay, amnigooda mas'uulka ka nahana naguma qancayaan, waxaan u qabanayno naguma qancayaan. waxa kale oo lagu guuleysan karana waxa waaye in wadajir lagu wada shaqeeyo. Hore waxa la yiri gacmo wadajir wax ku gooyaan, gacan kaligeed shaqo qaban karta ma lahan. haddii booliisku meesha ka maqan yahay military waxba ma qaban karaan, haddii militarigu meesha ka maqan yahana booliis waxba ma qaban karo. haddii maamul ka maqan waa ka sii daran oo waxaan aniga mas'uul ka nahay oo amnigooda sugayna bulshada waaye, bulshada iyo ciidankana maamul u dhaxay. waxaan rabaa marka meeshaan aniga